ugu dambeyn haddii uu cawaale yahay ruux kasoo horjeeda gobonimada Somaliland isaga naftirkiisa سينو حسوسنا سديدي توبك مي مالنتو حرنimada Somaliland magaalada Ottawa ee wadanka Canada xafladu fire fire on my rule you fit in my life you fit in my head you fit to go say she don't get drunk easily she can dance till 5 in the morning no car house money wala naxib kultu wanaagsan daawadyaal ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan maantiidii sidoo waxaynu ka hadli doonaa arrimo dhowr ah oo ku saabsan jimcihii wixii ka dhacay Hargeysa iyo showgii uu qabtay fanaanka caanka ah ee Cawaale Aadan muuqaalo kala duwan oo cadeynaya soo gudbi doonaa sidoo kale saaxiibayaal daawadayaal kuwa oo ku aadan sidii uu dhacay showgaasi qaabkii loogu talagalay qaabkii uu noqday dadka qaarkood waxyaabihii ay ka faafiyeen xaqiiqada rasmiga ah ee ka jirta showga Cawaale sidoo uu noqday inuu guuleystay iyo inuu guuldareystay sidoo kale ma bixin doono faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku aadan qaabka hoolka loo soo buuxiyay dadkii mid intay ahaayeen iyo sida showgu u kala kacsanaa marka hore balse ila daawada muuqaal فاينك ما بيحن ضمن قاب شو اللي سو ترى بحي ضدك قاب كي واحد ميراد قاب كفنان كل الله جان قاضي يصير هي هيدا حالة ضبيش عسي بلس مركه هربو قال كان إذا دعوة إنه كسر ديار لي شو جي هرجيس كان داعي يو عوالي آدم قاب كي كاجريا شيء قرون أما هو الكسر بلافيا halkan waad ka garan kartaa saaxiib in showga Cawaale dadkii loogu talagalay inay yimaadaan inaysan imaanin balse showgu waa show kala kacsan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal showgu markuu soo dhamaaday kadib waxa jira warar YouTube ka lagu baahiyay sidoo kale Facebook-yada waxa la soo dhigay warar ku saabsan in showga Cawaale uu fashilmaday in markii hore showgu markii uu dhacay kadib waxa soo baxay warar sheegay in showgu fashilmaday in showga lacagii lagu galayay ay $5 ahaayeen markii dambe 20 laga dhigay ugu dambeyn $10 timid $5 ay timid dadka qaarkood free lagu galiyay oo la waayay taageerayaal waxa soo idin waa wax beena oo sal iyo raad aan ku lahayn xaqiiqda markay loo hadlayna sida saxda YouTuber badan oo Hargeysa ama Somaliland waxay isku dayeen in ay dilaan qiimaha Cawaale uu leeyahay sababtoo ah showga maalintii ama habeenkii uu dhacay waxa ku soo aaday xilli roobaad roob da'ay hadduu roob da'ayna Hargeysa dadkii qofkii tagay baa tagay oo yaqaano kii aan tagina haddii uu roob da'ay socodka dadkii gaadiidka Hargeysa aad buu u yaraanaya marka qaar Hargeysa roob xoogan baa ka da'a fatahaad bay sababaan kan fatahaad muu sababin laakiinse waxa uu sababay in dad badan aysan ka soo qayb galin showga Cawaale وكان هذا عدين كذا أوبا هنتهينا يسقى أو شو جمركوا ده كدي ما نتكلم حتى سبت ده هاي لها ليس حافظة تاجرية شيء هاد علينا قالي سقيمة أكتر كله أنا قوم هاد عليو دمان شعبوينها كنول سوماليلاند قار أهان شعب كرير هرقيسة ورنتي سجوا بالنملة أو الشرف له أو قالي دبقالة يجلسوا بويسين inta aan magaalada joogin si sharaf leh wallahi haysa oo aan kulli abaal ya ixtiraam ugu hayo dadku wada daawanay isla garanay intaan maxay tahay colaad ay u hayaan reer Somaliland maxay tahay colaad ay u hayaan reer Somaliland Cawaale Aadan xasuustayna hadaynu dib u celino waxa la baajiyay showgii Maxamed Saciid Bikey uu ku qaban lahaa Nairobi Kenya markii uu baajiyay ama la baajiyay kadibna isagoo lagu eedeynayo in shanta Soomaali uu kala qaybiyay waxa soo baxay warar sheegaya in Cawaale uu isagu yiri waxaan show ku qabsanayaa Hargeysa isla markiiba waxa jiray warar soo baxay oo Facebook-yada lagu baahiyay sidoo kale dad badan ay YouTube-da la soo fadhiisteen in Cawaale uu Hargeysa imaan karin isagoo wuxuu soo daabacay xilligaasi qoraal tiro badan oo ka kooban ilaa 6 page ولا كجهل ليو فالعلمنا كجسم يعني ضدك يجي مي ما نكتب Hargeysa isaga oo ku dooday
in uu xaq u leeyahay inuu yimaado Hargeysa inta qof Hargeysa ka socda ama Somalilandana uu tagayo Djibouti haniisu fulbina ma qosday wali bariya reer Somaliland yani maad Hargeysa nimayo iyo codaya buusadhin wuxuu yiri waxaan ahay muwaadi Djibouti yaala inta Djibouti inta Hargeysa ama Somaliland ay u baahan tahay Djibouti way u baahan tahay Somaliland waana wax saxda ah ee meesha yaala waa inta fanaan uu imaanayo meesha la yiraahdo Djibouti oo Hargeysa uu ka tagayo fanaan baa ka imaanaya Djibouti sawira oo Hargeysa ibaanaya sidoo kale qodobada uu ka hadlay waxa kamid ahaa wuxuu yiri waani eedeentiida wax la qarin kara ma jiraan hal soo bandhigo marka aan aniga mataqaanaa Somaliland in ay tahay jamhuuriyad jirta markii aan aniga diiday banaanka hal soo dhigo iyo kuwa kale oo tiro badan ugu dambeyn adiga odayga wareerisidiisii way u socotay wayna u hirgashay waxay la tahay sababtay in odayga la yiraahdo niyahow waayahay oo ku cuma badan naga raali ah raali gelintu dalbadan la siiyo la yiraahdo bal waayahay imow wuu yimid show buu qabsaday maxay tahay haddana sababta marka hoos looga sii xurgufaynayo la leeyahay showgiisa waa fashilmado dad maysan imaanin oo free buu ahaayo saabay ahayd arinta rasmiga ee ka dambayso waxay tahay Cawaale waxa uu xaqiijiyay in safarkiisa uu kusoo gabagabeeyay Muqdisho waxa uu xaqiijiyay in 4 September uu show ku qabanayo magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Somaliland dadkeedana waxay ka soo horjeedaan in ninkan Muqdisho tago in uu ku qabto show meesha la yiraahdo Nairobi waana mid rasmiga ee taal ee loo leeyahay Cawaale showgiisa uu fashilmay waana wax aan saliiraad lahayn qof walba waa daawan kara dib uu eeg kara showgaasi qaabku ka dhacay iyo qaabkii loogu kalkacshay odaga iyo sidoo isaga naftirkiisa ugu tumay reer Hargeysa habeenkii Jimcaha ahayd ugu dambeyn haddii uu Cawaale yahay ruux ka soo horjeeda gobonimada Somaliland isaga naftirkiisa sidoo xasuusano 18 May maalinta xornimada Somaliland magaalada Ottawa ee waddanka Canada xafladooda iyagu way garaacay iyaga uga tumay bal fiiri hablii Somaliland qaabkii ula jaasayaan ula qasriyaan ugu faraxsan yihiin inay Cawaale ka garab ciyaaraan dadkaagi dibadda jiray inay taageeraan ruux adigii dalka ku sugnaan aad mucaarad ku noqoto runtii ma aha waxaynu garan karno micnaheeda Cawaale way soo dhaweynaydaa waxaanu leenahay ku soo dhawow geeska Afrika ku soo dhawow Nairobi ku soo dhawow Soomaaliya show kala kacsan oo la yaabo baynu ka tubi doonaa insha Allah magaalada Muqdisho muuqaalkeena maanta saaxiibayaal waa dhiginta subscribe like share adiga ayaa laga baahan